wuxuu yiri anigu kaan ahay baan ahay magac qaas ma lehi soo sheena idin sheegay magac qaas ma lehi soo sheena idin sheegay wax walba kana abuura weeyaan ilaah magac gooni ma laha yaa wax walba kana abuura weeyaan ilaah magac gooni ma laha magac buu lahaa sida qormada oo ku cad laakiin shaaniya ma taqaano buuggeeda waxa ku qoran marka qofka hadduu iska hadlaayo oo kabar qabin buuggiisii dhibaatadan oo kale la kulmaya الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن عمر وإذن لا دمانتين سود هذا قف كست مسلم ويقانا معبود كحق maxaa yeelay wuxuu leeyahay laa ilaaha ila allah macnaha laa macbuuda bixaqin ila allah ilaah xaq lagu caabudo ma jiro ka ahayn allah tabaaraka wa tacaala idan qofka muslimka wuu yaqaanaa magaca macbuudka xaqa ah maxaa yeelay shardiga ugu horeeya laa ilaaha ila allah waxa weeyaan waa alcilm weeyaan قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله إذن ويقانا بالضرورة إله حقه لكن قولان كريشنكا وحدهن خالق أو أبوري الدون كاني مقع ملها أيدهن يا وح والبكنا ورويان إله مقع بوني ملها يا وح والبكنا ورويان إله مقع بوني ملها هذا كان وباطل ويان مد كواد إله وحالي رادا مد كالعابدو إلهي وجران لكن كل قودي وهو باطل ويان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل مد بعد رسوشدن أو إلهي تبارك وتعالى صدري كل جودي أقوام تودي وحبراين إن إلهي كلي عابدان مركا وحبراين إلهي مجعيسي الله تبارك وتعالى إذن وحويان مجعي الله تبارك وتعالى بالضرورة أي أشياءين سأعابدان مدك حقه قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ضدك وحقوا يرايين يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ساس بأهد دعوة رسوشدن وحدهن موسى مركو إلهي ويديي مقعيسي إلهي كالوائن هذا الحانا إله كالأنيق موغي أنا أبا هؤلاء إله موسى مركو ويديي إلهي ومقعان wuxuu ku yiri maxay dadka ku soo bixinay hal weydiyo waxaan yiri ishagu magacaaga aan u sheegay bas dadka waxyaal ilaahay kala beenbeen jiro magacyo kala duwan jiro wuxuu yiri anigu kaan ahay baan ahay magac qaas ma lehi soo sheena idin sheegay magac qaas ma lehi soo sheena idin sheegay marka waxa magac qaas ah oo maxay lagu dhijiyay malaha 99 magacna malaha waa jis wuxuu yiri aniga kaan ahay baan ahay waa ilaahay adiga magac taasoo waxa beeninayo Muuse markuu ilaahay la hadlaayay إلهي تبارك وتعالى وحيري إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري يا وحيري أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين يا وحيري يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم كاسوا نبأ السماء وين وكتابك الله تبارك وتعالى وين وكتاب كاسي وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد مد سدحات ضد كان بوغا ايك اي رميسيين ايا كوكر باشا يا وحاو عدينا يا انو مقع ليهي wuxuu yiri anigu kaan ahay baan ahay magac qaas ma lehi soo sheena idin sheegay magac qaas ma lehi soo sheena idin sheegay yaa wax walba kana abuura weeyaan ilaah magac gooni ma laha yaa wax walba kana abuura weeyaan ilaah magac gooni ma laha bal ila dhageyso faqradan koowaad oo cadeynayso in oo lahaa magac miika cutubka afraad waayo dadyowga oo dhan mid kastaba wuxuu ku socon doonaa magaca ilaahiisa oo annaguna waxaannu ku socon doonaa magaca rabbiga ilaahayaga ah weligeeyo iyo weligeeyoba qormadan waa hadalkii miikha nebi aw miika qormadaasina waxay noo caddaynaysaa mid kasto inuu leeyahay ilaahay oo caabudayo ilaahaasna wuxuu leeyahay magac saas oo kale bani israa'iil ilaaha eeka ay caabudayeen magac buu lahaa sida qormada oo ku cad laakiin shaaniya ma taqaano buuggeeda waxa ku qoran marka qofka hadduu iska hadlaayo oo kabar qabin buuggiisii dhibaatadan oo kale la kulmaya يا وح والبكنا ورويان إله مقع بوني ملها يا وح والبكنا ورويان إله مقع بوني ملها بل كدر سو قرمدان ay ku jirto zabuuradii qormadaas ay cadeynayso in oo leeyahay magac sabuuradii 74 meeshada quduuska ah dabbay ku dhajiyeen oo waxay wada nijaaseeyeen meeshii magacaaga hoyga u ahayd ilaahow ilaa goorma cadowgu caytamaya cadowgu miyuu magacaaga caayaya weligiisba rabbiyo xusuuso in cadowgu caytamay iyo in dad nacas ah magacaaga caayay faqrooyinkani waxay noo cadeynayaan inuu magac leeyahay hadduusan magac lahayn lama dhihi lahayn magacaagee la caayay waayo laana cadam sidee cadam u caynaysaa cadam weeyane washayga hadduu jiro markaas baa la caynaya moogtahay faqrooyinkan waxay sheegeen waa magac bedeen ma dhihin aday ku caynooye ma aha marka meesha waxaa ku cad
inuu magac oo leeyahay. bal shaaniya qormadan ku sii darso oo ku jirto yermiya cutubka 23 qormada 27 waxay u malaynayaan inay dadkeygii magacayga ku ilowsiyaan riyooyinkooda midkooda kastaba oo deriskiisa u sheego sidii awowyaashoodiiba ay magacayga ugu iloobeen bacal aawadiis. qormadan waxaa ku cad in bani israa'iil awowyaashoodii magacii allah inay ilaabeen. bacalna waa ilaah wathan weeyaan ee caabudi jireen reer kancaan. marka meesha waxaa ku cad in oo lahaa magacaasna reer bani israa'iil awowyaashooda ilaabeen. bal hadda kaaliya ila dhegaysta yermiya cutubka 44. yermiya cutubka 44 qormada 26 haddaba dadka yahuuda oo dalka masar degno bal eega rabbiga maqla. rabbiga wuxuu leeyahay bal eega magacayga weyn waan ku dhaartay inuusan qof dadka yahuuda ah mar dambe magacayga kusoo magacaabi doonin dalka masar oo dhan asagoo leh sayidka rabbiga ah. marka qormadan sida ku cad yahuud oo reer yahuuda ayaa waxay u carareen masar ay u carareen, kadibna rabbiga wuxuu ku dhaartay magaciisa ku dhaartay. marka meesha waxaa ku cad inuu magac leeyahay. marka waxaa u jeednaa qaarna magacii la ilaawsiyey, qaarna way ilaabeen magacii sida awowyaashoodii, qaarna waxay sameeyeen magacii rabbiga ayay qariyeen, waxay ka dhigeen sir bay ka dhigeen, waxay ku bedeleen magacii rabbiga 4 xuruuf la soo gaabiyey, waxay ku qoreen yuud he baab he ama yuud he waaw he. waa 4 xuruuf weeyaan, ya ha waaw ha. magacaasna sida sharcigood uu qoraayo waa mamnuuc in lagu dhawaaqo, sir bay ka dhigeen, cid oo garanaysana ma jirto. bal ila akhriya kitaabkaani. kitaabka magaciisi waa almadkhal ila alkitaab almuqadas القس حبيب سعيد صفحتنا صدا وحوليه. ومما هو جدير بالذكر هنا وحوليه وحمد أنا ماشان كحسنه أن النطق الأصلي نطق أصلي أو صحيحة لاسم الجلالة بالعبرية مقعي إلهي أو عبرية يا ها واو ها قضاع ولمي بوغانا كدرسو وحالي هذا مقعي المدخل لشرح إنجيل القديس يوحنا دراسة والتحليل للآب متى المسكين وحوليه. وبسبب التحذير الواضح من نطق اسم الله كما جاء في لاويين سيد الدقنين تقعد إن لغور واقع مقع الله كما جاء في لاويين 24-16 سيد كو ماضي لاويين تا لواتني أفر 8 طبعا في غير الصلوات والتلاوات فإنهم اكتفوا بالكلمة أدوناي بدلا منها. صلاة دا وحكا بحسن وحي كلي أديك سنجرين كلمة دا أدوناي مقع بدل كيسة. بدأ الاسم يهوى ينحصر في الاستخدام مقع يهوى وحب اللفظي إنه كوكو مكلي الاستخدام الطقسي فقط عبادة كلي. ثم بعد ذلك بدأ يزحف على المخطوطات كلها كدبنا وحو أقود بي مخطوطات كدا فلكي يتحاشى القارئ نطق يهوى سيئو أقود واقن قارئة يهوى التي لا نعرف الآن لا نحن ولا اليهود في كل العالم نطقها الصحيح. مقع سيئو أنغا يهود دمان وعالم ككنو القرنين دواقيسي صحضة كريستان كيهود ما يقانان مقع سيد الله دواقة صحسن مهستان كدب وحوليه وضعوا عليها أي كلمة داسي وحي صار تشكيلا شقل من عندهم أكتوري هو نفسه التشكيل الذي تنطق به أدوناي شقل كاسين وحاله كلمة أدوناي وهو فتحة ثم ضمة ثم فتحة حتى إذا لمح القارئ هذا التشكيل قارت هو أركا قارئة شقل كان على كلمة داسي YHVH ينطق أدوناي بكل واقعية بدلا عنها بدل كذا كلمة داسي كذب وحير. وأخيرا وقدم بين وفي القرن الثالث قرن السدحات اتفق اليهود وحيكوه الشيين على حذف إن توران كلمة دا يهوى من المخطوطات ووضع كلمة أدوناي أي كبدلان كلمة دان أدوناي عوضا عنها. buugagtan soo qaatay ma aha buugag oo muslimiin qoreen, waa culimmadii Christianka weeyaan dadka qoreen oo hadalkan dhaheen. marka qolada Christianka culimmadoodii way qirsan yihiin in magacaasi lumay. marka waa dareemi kartaa shaaniya markay leedahay magac ma laha, dee magac ma laha ma ahee waxa weeye magacii ma taqaaniin. bal hadda kaaliya waxaa rabaa inaan idin tusiyo Soomaalida tarjamadoodii maxay ku qoreen. zabuuradii cutubka 83 qormada 18 si ay u ogaadaan in adigu magacaaga ilaah yahay aad tahay ilaaha ugu sareeya dunyada oo dhan. af Soomaali waxaa ku qoran magacaaga ilaah yahay, carabina yahwa. New Translation Version the Lord, King James Bible na Jehovah, Literal Standard Version na YHWH, Holman Christian Standard Bible yahwa. bal waxaa ku darsataan qormadan baxnintii cutubka 6 qormada 3 oo waxaan ugu muuqday Ibraahim iyo Isxaaq iyo Yacquub sida ilaah qadiir ah laakiin se magacayga ah Rabbi iguma ay aqoonin. taas af Soomaaliga in carabigana wana dhahartu li Ibraahim wa Isxaaq ويعقوب بأن الإله القادر على كل شيء وأما باسمي يهوى فلم أعرف عندهم. صومالي وحكو قرن ربي باكو قرن عربي وحكو قرن يهوى باكو قرن. New International Version وحكو قرن My name the Lord. King James Bible وحكو قرن My name Jehovah. Literal Standard Version وحكو قرن My name
YHWH New Living Translation my name Yahweh. marka sida arkaysan meelna waxay ku tarjumeen rabbi ay ku tarjumeen meelna waxay ku tarjumeen ilaah bay ku tarjumeen erayga ilaahna isla bible-ka wuxuu u isticmaalay sheedaanka wuxuu yiri sheedaanka inuu yahay ilaah hada dahr iyo sida bible-kooda sheegayo wal ciyaadu billah Suleymaan ayay waxay dhaheen wuxuu raacay Ashtaroth taasna waxay ahayd waa ilaahadii marka erayga naftirkiisa ilaah de waa midka baatilka iyo midka xaqa labada baarti waa loo isticmaalay ilaah baa la leeyahay muuse markuu weydiiyo yiri ilaahay magacaan wuxuu ku yiri maxay dadka markuu soo bixinay hal weydiiyo waxa yiri ishagu magacaaga aan u sheegay bas dadka waxyaal ilaahay kala beenbeen jiro magacyo kala duwan jiro wuxuu yiri anigu kaan ahay baan ahay magac qaas ma leh soo sheegay idin sheegay magac qaas ma leh soo sheegay idin sheegay marka waxa magac qaas oo maxay lagu dhijiyay malaha 99 magacna malaha waa just wuxuu yiri aniga kaan ahay baan ahay bal hadda waxaan rabnaa inaan aadno isla qormada eeka ee soo qaateen qormadaasi oo ka hadlayso qisadii Muusa calayhi salaam iyo rabbul caalamiin dhaxmartay waxa idin tusinaya insha Allah tacaala hadalkaas inuu yahay hadal oo bashari maxad qofka qoray qisadaasi inuusan ku qorin wax maxaa yeelay waxa arkaysiin qofka qoray wuxuu ka dhigay kaanama laba qofood oo sheekeysanaya bal hadda kaaliya ila dhageysta wax dhaxmaray Muusa calayhi salaam iyo rabbul caalamiin sida bible-ka sheegayo haddaba kaalay oo waxaan kuu dirayaa fircoon inaad dalka masar ka soo kaxaysid dadkayga reer bani israa'iil ah bal yaanahay anigu markaan fircoon u tegayo oo aan reer bani israa'iil ka soo bixinayo dalka masar xaqiiqdii aniga ayaa kula jiraya oo taasaa calaamo kuu noqonaysa inaan aniga ku soo diray markii dadka ka soo bixisid masar ilaah baad burtan ugu adeegi doontaan bal eeg markii aan u tago reer bani israa'iil oo aan ku idhaahdo iyaga ilaahay awoowayaashiin baa ii soo kiin diray oo iyaga waxay igu odhan doonaan dee magaciisa maxaa la yidhaahdaa haddaba maxaan ku odhan doonaa anigu waxaan ahay kaan ahay oo waxaad ku odhan doontaa reer bani israa'iil waxaan ahay baa ii soo kiin diray oo waxaad ku tidhaahdaa reer bani israa'iil rabbigiin ah ilaahii awowyaashiin oo ah ilaahii ibraahim iyo ilaahii isxaaq iyo ilaahii yacquub ayaa ii soo kiin diray kani waa magacii weligeyga laygu xasuusto midda koowaad waxaad ogtihiin yahuudda inay aad u dhibeen nabiyullaahi muusa dhibkaasna waxaa ka mid ah been abuuradka aan maqlayseen hadda nabiyullaahi muusa calayhi salaam ayay u nisbeeyeen hadalkan wahuwa kadibun waftiraa nabiyullaahi muusa calayhi salaam wuxuu ka mid ahaa ulilcasmi min alrusul marka ma ka suurtoodo nabiyullaahi muusa in oo sidaan ula hadlo rabbulcaalamiin marka meesha waxaa ku cad in hadalkan yahay been abuurad midda labaad waxaad arkaysaa hadalkii oo iskhilaafayo oo isburinayo hadal oo iswaafaqsan ma aha marka koowaad markaa la weydiiyey magacii wuxuu ka jawaabay ahee ladii ahee hoosna waxaa arkaysaa magac ayuu soo qaatay afka Soomaaliya way ka bixiyeen magacii dhan way ka saareen carabiga haddaad tagtid waxaa arkaysaa waxay ku qoreen yahwa ayay ku qoreen marka qoladan Soomaalida buugoodii wax weeyaan taxriif fوق taxriif weeyaan marka shaaniya aqal xumadeedii waxay rabtaa muslimiinta inay waxaan ku akhriso subhanallah ugu dambeyn waxaan rabaa shaaniya waxay tiri iyo waa kan waxa la dhahaa abuuray cirka iyo dhulka iyo waxa u dhaxeeya yaa wax walba kan abuuray weeyaan ilaah magac gooni ma laha ma cunug dhalay magac loo bixinayo ma magac gooni ma laha ma cunug dhalay magac loo bixinayo ma magac marka waxa la bixinayo waxa la markii ilmo la dhalo aan magac la bixiyaa neef marka soo gadasata magac uu bixinayo ilaahay asaga yaa magac u bixinayo hooyo abu leeyahay ma shakhsiya waa magac gooni ma laha ما عنق دلay magac loo bixinayo ma magac marka waxa la bixinayo waxa la markii ilmo la dhalo aan magac la bixiyaa neef marka soo gadasata magac uu bixinayo ilaahay asaga yaa magac u bixinayo hooyo abu leeyahay ma shakhsiya waa maya qoftaan iyadoo ogeen ayay waxay ku furtay ilaaheeda waxay ku furtay rasaas bay ku furtay maxaa yeelay waxay rumaysan tahay in ilaaheeda calool ku jiray oo la dhalay oo caruur ahaa oo naas la noojiyey intaas dhan way rumaysan tahay maxaa yeelay ciise almasiix waxay u rumaysan tahay inuu yahay ilaah waana wuxuu ahaa cunugna wuu ahaa magacna waa loo bixiyey marka dadkaani waa sidaa weeyaan ahl albaatil daa'iman waa sidaa weeyaan caqiidadoodii waxay tahay waa caqiido oo isburinaysa weeyaan الله صيرني عصا موسى لكم حتى تلقف إفككم ثعبان